السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك حرن جنة الكمر كلا سود واضح أدي ما تسنتهين مقال كانوا حرب إن ندخل وذاقه وزارة عدالة أمريكا أو حال الشاعة كقاضي دوكومنتيو ترام لحريرين إياه ننكي قبلها يرجر كودا كجناح سنجري إبستين فايل أو وزارة عدالة أي مركي هراء قريسي أي حل الجيفي أي صوبان دكتي هذا محا حل جن كوسو باجي إن وزارة عدالة ay soo bandhigtay dokumentiyadan Trump la xiriirinaya Epstein file maxay yihiin dokumentiyadan la soo bandhigay oo waliba dokumentiya xasaasi ah madaxweyne Trumpna ceebtiisa muujinaya arintan wasiirka cadaaladda ay la xiriirtaa maadaama guddiga la xisaabtanka ee Congress-ka ay arbacadii u codeeyeen waliba 5 xubnood oo Republican ah ay codeynta ay ku jireen in Sabina waraaq loo diro isla markaana guddiga ay hortimaado oo su'aalo la xiriira dokumentiyadan la weydiiyo arintaasi ayaa sidoo kale aan idinla wadaagaya dagaalka Mareykanku kula jira Iran imisa lacag ah ayaa maalin kasta ku baxaysa hadda maalmihii u horeeyay boqolkii saacadood u horeysana lacagta ku baxday maxay dhan tahay Mareykanka oo hadda kaalmo weydiisanaya dawladda Ukraine oo aan ognahay dagaal inay kula jirto wadanka Ruushka kaalmadaasina maxay tahay waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay sharcigii Epstein Transparency Act oo Congress-ku ay meel mariyeen November madaxweyne Trumpna uu saxiixay waxa uu dhigayay in wasaaradda cadaaladdu ay soo bandhigto dhammaan dokumentiyada la xiriira Epstein files waxa loo qabtay muddo 30 maalmood ah in wasaaradda cadaaladdu ay ku soo bandhigto laakiin waqtigii waa ay ka gudubtay 45 maalmood kadib ayaa bishii January 3 milyan oo dokumentiya ay soo bandhigeen laakiin markaas kadib waxa soo baxday in xubnaha Congress-ka iyaga loo ogolaaday in wasaaradda cadaaladda ay tagaan iyagoo wax computer wadan iyagoo aan wax telefoon wadan qalin iyo waraaqo ama buugaag wato oo kaliya isla markaana dokumentiyada ay soo arkaan walow xitaa la ogaaday in markaas xitaa wasaaradda cadaaladdu ay basaasaysay xubnahan Congress-ka maxay eegayaan oo maxay fiirinayaan xitaa kor laga la socday oo markii dambe la ogaaday marka arintaasi waxay qasabtay in la ogaaday oo dimuqraadiyiintu ay ogaadeen in wasaaradda cadaaladdu ay qarisay dokumentiyo fara badan oo Trump la xiriirinayay ninkii Epstein ah ee gabdhaha yar yar dadka madaxda ah iyo dadka lacagta leh ka iibin jiray gabdhaha aan qaan gaarin oo da'doodu 18 ay ka yareen arintaasi marka waxay sababtay in wasiirka cadaaladda Congress-ka looga yeero oo su'aalo la weydiiyo isla markaana xitaa ay ku fashilantay hadda bishii la soo dhaafay markii loo yeeray waxa jirtay marka arintan hadda dokumentiyadan xalay xilli la hurday ay soo bandhigeen maxaa sababay intaan u gudbin horta waxyaabaha sababay dokumentiyadan waxa ay yihiin dokumentiya Trump la xiriirinaya ninkii Epstein aha waa dokumentiya FBI-du wareysi ay ka qaaday qaar kamid ah gabdhihii Trump ku eedeynayay in uu faraxumeeyay waxa la leeyahay waa ilaa iyo haweeney muddo 4 jeer ah FBI-du ay interview ka qaadeen sanadkii 2019 gabadhan waxa ay sheegaysay in Epstein uu baray ninkan Trump ayaa waxa la baraya gabar oo Epstein ayaa baraya isla markaana gabadhan waxa ay sheegtay oo Trump ay ku eedeynaysay in uu Trump dhibaateeyay intii u dhaxaysay iyadoo da'deedu ahayd 13 ilaa 15 sano marka dokumentigan waxa uu cadeynaya midka ugu muhiimsan hadii aan sheego gabadhan waxa ku qoran taariikhdu in ay tahay gabadhan interviewga laga qaaday bishii 7 sanadkii 2019 gabadhan waxay leedahay marka qol laga buuxo ayaan soo galay kadibna Trump ayaa la ibaray Trumpna waxa uu amray dadkii inay qolka ay isaga baxaan markaas kadib ayaa waxa uu yiri waxaan ku barayaa sida gabdhaha yar loo baahan yahay inay noqdaan markaas kadib waxay leedahay gabadhii jiyeerkii ayuu ka furay sarwaalkii aan watay kadibna waxa uu madaxayga galiyay labadiisa lugood dhaxdooda halka uu la aaday waad garan kartaan markaas kadib gabadhii xubintii taranka ay Trump ka qaniintay sida ku qoran warbixintan gabadhaasi laga qoray oo FBI-du ay interview gareeyeen markaas kadib Trump waa uu carooday dadkii ayaa ku soo laabtay qolka marka sidaasi ayay wax u dhaceen waa hal kamid ah wareysiyadii laga qaaday gabadhaasi oo ilaa iyo 4 wareysi oo kala duwan ah marka wasaaradda cadaaladda marka xilligan inay dokumentiyadan soo bandhigto oo waliba Mareykanku dagaal Iran uu kula jiro maxaa u sababa waxa jirtay arbacadii in
guddiga la xisaabtanka ee Kongareeska in ay u codeeyeen in Sabina wax la yiraahdo lagu sameeyo oo waraaq loo diro wasiirka cadaaladda Pam Bondi isla markaana ay guddiga hor timaado lana weydiiyo su'aalo la xiriira sababta dukumentiyada qaar ay u qariyeen oo waliba Trump la xiriirinaya ninkii Epstein file ahaa 19 xubnood ayaa guddigan 24 ayaa u codeysay 19 waa ay diideen 24 kaasi marka 19 kamid ah waa dimuqraadi halka sidoo kalena 5 xubnood ay yihiin Republican oo ku raacay xubnaha dimuqraadiyiinta in loo yeero wasiirka cadaaladda Pam Bondi waxa kamid ah Nancy Mace oo laga soo doorto South Carolina xubnaha kalena waxa ay kala yihiin oo Republicanka ah Lauren Boebert oo Colorado laga soo doorto Scott Perry oo Pennsylvania laga soo doorto Tim Burchett oo laga soo doorto Tennessee iyo Michael Cloud oo Texas laga soo doorto marka wasiirka cadaaladda waxa laga doonayaa marka in guddigan ay hortimaado la dhaariyo kadibna ay sheegto sababta dukumentiyadaasi ay u qarisay marka Trump hadda shalay waxa uu xilka ka qaaday wasiirkii amniga gudaha Kristi Noem sababta uga qaaday ma garanaysan arbacadii markii sanadku ay su'aalaha weydiinayeen ayaa senator John Kennedy oo laga soo doorto Louisiana waxa uu weydiiyay lacagtan 220 milyan ah oo aad xayisiinada ku sameynaysay madaxweyne Trump miya ogolaaday markaasay tiri ha waxa la leeyahay Trump waa uu daawanayay sida darteed arrintaasi ayuu ka carooday maxaa yeelay lacagtaasi maba uusan ogeyn 220 milyan oo xayisiinada dharka kala duwan intay gashatay ay wasiirka cadaaladdu ay wasiirka amniga gudaha iyo xayisiinadaasi ay ku sameynaysay marka hadda wasiirka cadaaladda Pam Bondi ma noqon doonta qofka labaad ee Trump xilka uu ka qaado maadaama dokumentiyadan oo markii hore la qariyay sharciga Epstein Transparency Act oo la meelmariyay November Congress-ku meelmariyay isaguna uu saxiixay loona baahnaa inay soo bandhigto ay qarisay maxay xilligan u soo bandhigtay arrintaasi waxa ay tahay arrinta hadda laga yaabo marka inay noqoto wasiirka labaad ee Trump xilka uu ka qaadi doono haddana Kongareeska ayaa Sabina waraaq u diro yiri waa inaad ka soo hor muuqataa guddiga xubnaha Republicanana sidoo kale ay u codeeyeen dhinaca kale dagaalkii Iran Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen maanta waxa uu galay maalintiisii 7aad Iran marka wali waxba ma reebanayso waad arkaysaan Israa'iil waxyaabaha habeen kasta ay ku hurgufayso oo hadda xitaa ay caawa socdaan laakiin waxa la yaab leh in Mareykanku hadda uu weydiisanayo Ukraine oo dagaal kula jira Ruushka in uu ka iibiyo diyaaradaha waxyaabaha looga hortago diyaaradaha droniska interceptorska oo diyaaradaha qabta maxaa yeelay waxa ay muddo la dagaalamayeen Ukraine iyaga ayaa samaystay Mareykanka uu u diidayay inuu gargaar siiyo wadankaasi Ukraine oo aan ognahay sidii aqalka cad loogu bahdilay madaxweynaha Ukraine Zelensky hadda Mareykanka waxa ka dhimaanaya gantaaladii waxa difaaca ee Patriotka ee dhinaca wadamada qaliijka ee qaban jiray diyaaradaha iyo gantaalada ayaa ka sii dhamaanaya maadaama ay Iran gantaalo ay ku daalisay sidaas darteed waxay leeyihiin Ukraine waxaan ka rabnaa inay nasiiso diyaaradaha droniska ee qabanaya droniska waxyaabaha ama qalabka qabanaya droniska ay Iran soo dirayso arrintaas waxay tahay arrin la yaab leh Mareykanka boqolkii saacadood ugu horeysay dagaalkan Iran uu ku qaaday waxa uga baxay 3.7 bilyan oo dollar maalin kasta micnaheedu waxay tahay marka inuu uga baxayo 891.4 milyan oo dollar ayaa maalin kasta Mareykanka uga baxaysa Mareykanka marka hadda gantaaladii Tomahawk ayaa ka sii dhamaanaya xitaa waxa la leeyahay diyaaradahan ay Iran soo dirayso ee droniska joog hoose ay ku socdaan mana la qaban karo sida darteed hadda Trump Congress-ku waxa weydiisanaya lacag 50 bilyan oo dollar Congress-ka markuu dagaalkan galay ma uusan weydiisan amar hadda marka sidee dimuqraadiyiintu ugu ogolaanayaan in lacag 50 bilyan loo ansixiyo si uu dagaalkan u sii wado arrinta la yaab kale Trump waxay tahay waxa uu leeyahay hadda wareysi uu bixiyay hogaamiyaha sare Iran marka la dooranayo waaba in aniga la igala tashtaa ayuu leeyahay marka waxaan doonaynaa ayuu leeyahay qof aniga la igala tashtay oo ogolaaday in uu hogaamiyaha sare noqdo cid kasta oo meel kasta oo nala ka soo weerarayna waxa yiri waan duqeynayna waa ka argoosanayna marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan marka la kulmi doono nabadgelyo